السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله يوائد السلامي وحان ربا إنان وحير اسبربردق aan ku sameeyo dilkii George Floyd oo wadan kan Mareykanka inuu dhashay oo bulshada iyo mujtamaca madow ka tirsan oo ogtihiin rido ficili iyo jawaab adagna laga bixiyay iyo wuxuga wadankeeni waxyaabo ka jira shaki kuma jiro walaalayaal in ninkaas qaabka loo dilay oo dhulmi badan uu ku jiray intii ay dadku ka dhiidhiyeen iyo intii ay ka istaageen way ku mahadsan yihiin iyagoo ilaalinaya waliba nabadgelyada waxyaabo badan laakiin waxaan rabaa inaan dhaho waxa weeye dhulmigu halkan uu ka jira wadamada dibadda wadankeenina uu ka jira dilku wadamadan uu ka jira wadamadeena uu ku badan yahay quursigu iyo dadka qaar in la liido oo ama madownimo lagu liiday way ka jirtaa wadankeenina way ka jirtaa adoonnimo in dadka lagu qaar la aaminsan yahay inay yihiin wadamadan way ka jirtaa wadamadeena way ka jirtaa intaas oo dhan way jirtaa waad ogtihiin waxa aad iyo aad ii cajab geliyay laba tusaalaan rabaa inaan idin soo qaado waa laba nin oo Soomaaliyeed oo aqoon-yahan oo mid uu yahay professor Umar Aynow Allah yarxamu oo dhintay xilli aan fogeyn buu dhintay ninkaas wax badan ka sheekeeyay oo ka tirsan bulshada raali ahaada hadaan sheego bulshada waxaan rabaa inaan idin dareysiyo wixii aad dadka qaar qariyaan baan rabaa inaan si fiican u sheegno beesha jareer weyne ayuu Umar Aynow ka tirsanaa professorkaasi wax badan buu ka hadlayaa wuxuu yiri Soomaalidu markay timid Canada iyo Mareykan baa waxay leeyihiin sidaas ay noo arkaan madowbayna dhahayaan waana liidayaan wuxuu leeyahay meeqaad idinkuna soo liidi jirteen meeqa ayaad idinku dadka ku soo niyada ka soo diri jirteen meeqaad waxbarashada laga reebi jiray wuxuu ka sheekeeyay taariikh hore oo ku soo dhacday ninka labaad waa nin la yiraahdo Maxamed Xasan Cali Waji waa ustaad oo waxbarashada dadka waxbara macallin buu ahaa wuxuuna ahaa suxufi Soomaaliyeed ninkaas dhibaatada soo qabsatay waana beelaha la yaso oo dadka farsamada iyo birahaba u tuma ayuu ahaa laakiin Soomaalidu yasbe uga dhigeen wuxuu yiri maalin baa waxaan galay iskuulka sabuuradii baa waxa lagu sii qoray waan ku ognahay inaad tahay tumaal waxaan iri buu yiri in aniguna galaaskii ku xiga anaa ku sii qoray kii ku sii xigay anaa ku sii qoray kii kale anaa ku qoro yiri kadib buu weydiiyay ninkii iskuulka haysto yiri maxaad magaca u sheegay oo maxaad u soo celcelin waxa iri buu yiri adiga ay idinka hawshan igala horeeyay idinkaana ku qoray waxaana aaminsanaa buu yiri in macallimiinta qaar ay ka soo shaqeeyaan kadib gabadh baa layga soo doonay yiri waxaan ku iri buu gabadha soo moodinay tumaalta wuxuu yiri buu ninkii subhanallah waxaal baa ku qabanaya waxaan iri buu 2000 oo sano ayad idinku iliidayseen maanu xaal maanta qabanaya ninkaasi walaalayaal waxay ka sheekeen mid waliba waxbarashada markii la geeyay in la yiri maxaad ka soo doontay meesha waa dadkeeni waa wadankeeni waa dariskaagi waa qof adoo kala marka sideen qaabka inta leeg u mari karnaa waxaad ogtiin Axmed Dawlo in la gubay waxaad aragteen in inta soo gabdhood iyo wiilal oo dadka la yiraahdo isma guursadeen oo inta isguursadeen la xirxiray aabahood iyo hooyadood oo ma silsilada lagu xiray oo gacmaha iyo luguhuba ay go'een haddaba message-ka aan rabo waxa weeye inaan iraahdo waxaan aan ka dhiidhiyayno adduunku ka kacayo ninka dilkiisa ka kacay wadankeena ka jiraan inaga isliidna shaqooyinkii baan isku liidna xataa siyaasad ahaan 4.5 ka la sameeyay aragteen dad aan isliidayo way oo kala qabiil weyn oo leeyahay waa reer hebel waa Landheere waa 5 kana waxa way point fulan waa inta way marka waa dad la kala sareysiinayo hadda galay oo lagu shaqeysto weeyaan waa wax runtii u baahan in la bedelo weeyaan walaalayaal waxaan rabaa inaan dhaad shacabka Soomaaliyeed inay waxaas oo kale laga dhiidhiyo oo laga kaco waxa aad ila cajab badneed wiil yar oo dhalinyaro oo wadamadan aan fili inuu joogo ka hadlay meel dhow dadka madow iyo ninkan dilkiisa ka hadlay wuxuu yiri wiilkaasi cadaygayga aan haysto ayaa madow oo dhan ka fiican bal u fiirsada iskaashaha wuxuu yiri aan qabo intuu soo bixiyo saar lugtiisa soo yiri iskaashaha aan qabo ayaa madow oo dhan ka fiican billaahi calayka wiilka yar
oo diin ay ka muuqato iyo fulaan iyo camal iska dhigaya nin sunno iyo diin u danaynaya caqliga uu ku soo barbaaray waa caqligii dadka liidi jiray waa caqligii dadka aan ka hadlaynay waa kuwii gubayay waa kuwii dilayay kuwaasoo isaguna caqligaas wataa diin buu sheeganayaa muuqaal baa ka muuqda diimeed wuxuu leeyahay kabahaygaas ama soksiskayga aan qabo ayaa wuxuu ka fiican yahay madow oo dhan ama cadaygayga waa caqliga aw insaankii la karaamey walaqad karamnaa bani aadam aw sharaftii ilaahay subxaanahu watacaala dadkan uu u sameeyey marka wixii oo dhan ma fiirinay marka dadka caqligaasi in laga dhiidhiyo oo laga kaco oo laga hadlo oo hawshaas ay dib Soomaaliya loogu soo noqdo ظلمigaas intuu jirana inaguna ظulmiga waa lagu wada noolaanaya marka waxaan rabaa hawsha in la fiiriyo insha Allah taala kadibna ay noqoto umuur laga shaqeeyo culimo iyo indhergarad iyo rag iyo dumar iyo dawlado iyo kulligeed iyo siyaasiba in hawsha laga wada shaqeeyo insha Allah barakallahu fiikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh